munaasabadan oo si heertara loo soo agaasimay maanta waxay ka dhacday hoolka weyn ee warbaahinta danan ayadoona munaasabada loogu dabaaldegay sanad guurada lixaad ee markii idaacada danan maalinta idibada loo taagay kasoo wareegtay munaasabada ayaa waxa inta ay socotay kasoo qayb galay mas'uuliyiin fara badan oo isugu jira ururada bulshada rayidka ah iyo qaar kamid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona loogu dabaaldegay sanad guurada lixaad ee idaacada danan ayaa maanta inta ay socotay waxa qodbooyin fara badan kasoo jeediyay kasoo qaybgalayaasha munaasabada iyadoona ay ku amaaneen idaacada danan in ay dalka iyo dadka wax ay ka fara badan ay ka bedeshay muddadii 6 sano ay ka howlgalaysay gudaha magaalada Muqdisho agaasimo ku-xigeenka idaacada danan aadan macalin cabdulle aadaamo ayaa waxa uu ka hadlay in uu lahaa fikradda lagu aasaasay idaacada danan milkiilaha idaacada maxamed xaaji bare fiyoore wuxuuna hadalkiisa kamid ahaa waa filayaa inaad hambaliyadaas nagala soo qayb gashaan waxaan u mahadcelinayaa inta hawada nagala socota iyo inta maxaan idhahdaa hoolka nagula sugan anigoo uga mahadcelinaya waqtigooda qaaliga ahaa oo inoo soo hureen si ay nagala soo qayb galaan ee kasoo wareegtay markii radio danan idabada loo taagay mudanayaal ima ooyin maanta oo kale 7 March sanadkii 2009 ayaa markii ugu horeysay radio danan oo ka hadasha mawjada 94 maxamed deeq xaaji bare fiyoore oo lahaa fikradii lagu asaasay radio danan oo maanta goobjoog ku tihiin saddexaad khudbadda markii dheeraynayo hambaliyo waxaan kaga mahadcelinayaa mar kale kasoo qayb waxaana sidoo kale goobta ka hadlay cabnaan oo wakiil ka ahaa shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud asigoona sheegay in idaacada danan oo horey uga soo shaqeeyay kuna amaanay in ay idaacada siyaasadda ayna wax ka bedelin muddadii ay shaqeynayday iyo intii ay aasaasneyd shirkadda Hormuud Telecom si dhow ayay ula shaqeynaysay saxaafadda Soomaaliya gaar ahaan idaacadaha maxalliga radio danan wuxuu ka mid yahay idaacadaha sida gaarka ah oo dhow ula shaqeeya ay ku wada shaqeeyaan shirkadda Hormuud tan iyo markii la aasaasay 2009 waa muddo 6 sano qiyaastii ku dhow marka waan uga mahadcelinaynaa ladoodana waan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galno salaan aan ka wado kambaniga aan ka tirsanahay Hormuud Telecom waan usoo gudbinayaa madsharafka iyo maamulka idaacaddaba salaantaas kadib waxaan rabaa inaan wax yar soo koobo idaacadda danan waxaan ka mid ahaa dadkii sida gaarka ah uga soo shaqeeyey idaacadda ee xusuusta ay ku lahayd runtii iyadoo magaaladu ay ahayd xilli ayeen wadanku dowlad ahayn oo nidaam uusan ka jirin muuqda ayaan waxaan ka soo mid noqday shaqaalihii idaacadda aad ayaan ku faraxsanahay markastana waxaan jeclahay inaan maaragtay waa xasuustaa runtii waan ku faanaa maantana anoo shirkadda isgaarsiinta ugu ballaaran Soomaaliya wakiilka ah ayaa lagu soo dhaweeyey inaan fursad hadalkooda ka soo jeediyo runtii waa wax maaragtay farxad mudan ee aan ku faanayo iyadoo idaacaddu ay ka mid tahay idaacadaha liidinka oo hoggaanka haya xilligaasna runtii way ahayd waxyaabaha ay gaarka la tahay waxaa ka mid ah in qof kasta oo magac ku leh saxaafadda Muqdisho uu soo maray idaacadda danan oo markii xafladaha lagu yimaado xitaa marmarka qaar lagu qabtamo bahli danan la yidhaahdo runtii aniguna raggaas bulinka ahay aad baan ugu faraxsanahay inkastoo hadda xilligii ku jirin intaa kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo waxyaabaha ay idaacaddu laanta gaarka ah ku leedahay ragida shaqeynaysay inaysan jirin cid maaragtay markii anigu aan kusoo bixilaayey markii aan shaqaalada siibaayey shaqada aad maaragtay laysiinaayey waxaa la yidhahdaa shaqa kabaxa warqadda shaqa kabaxa ilaa iyo hadda inay siyaasadeedii iyo nidaamkeedii inay ku socoto runtiina waa wax lagu faano
إن ذلك يصاب بالعوضي ووضع الدولي كجري نظامية الإقامة الإسلامية نظامية كان حل المساومة حل الكسا إلا ما أنت وضع الدولي كجري سياسة دي إذا عبد الحلقة بالدليل هذا معناه إنه هاي وحا شقينا وحا إلى عبد شقينا إنه الحادة ومدة وأنظم هذه الناس إذا تكون الحياة الرجيمية دوران نواب ناسين السلام عليكم ورحمة الله gabagabada munaasabadda ayaa waxaa uga mahadnaqeen sida ay uga qanacsan yihiin shaqaalaha idaacadda danan oo goobta ka hadlay. qaar ka mid ah shaqaalaha ayaa waxa ay hadaladooda ka mid ahay bismillaah magacaygu waa Daariq Ali Macow soosaaraha warqabadka idaacadda danan iyo barnaamijka koorta caasimada aad aan u faraxsanahay laftan guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay idaacadda danan magaalada muqdisho الرحيم أنا جو علي سؤال عبد الله ماذا حب برنامج الراديو ضمن حناد وفرحتنا هاي سنة بورد اللي حاج كسو ورقتي أساس إذا عدد ضمن كمان شغالها إذا عدد ضمن هي شغالها يمبس كيف عليه هنبل سنة بورد المجال هو يحشق مريد عبد القادر كان مدة برنامج الصار يا شكران برنامج حتى يا رايد عبد ضمن فرحت وين أي تهينا كقريب قلت سنة بورد إذا عدد ضمن إن ونوم هذا لنا يا لما بشغالها إذا عدد ضمن يشغالها يمبس كيف waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalashada idaacadda danan oo maanta laga joogo muddo 6 sano waxaana ka mid ahay idaacadda kuwa banaanka oo joogo ummadda Soomaaliyeed gudahaan waxaan leeyahay gurowna markii midabada loo taagay warbaahinta magaalada muqdisho waxaana waxa ayna munaasabada kusoo ilaatay jawi ladnaan. Cabdullaahi Suleymaan Maxamed Baliil, website-ka warbaahinta danan gudaha magaalada Muqdisho.